dowladda Puntland uu ahaa adeeg iyo halgan gaaray dhammaan geyga Soomaaliyeed intii suuragalka ahayd marxaladan anigoo ka faa'iideysanaya fursadda oo aan rabin khudbad badan caawa inaan la wadaago maanta waxay ahayd maalin farxadeed waa maalin dabaaldeg waxaan rabaa cid walba oo maanta u dabaaldegaysa meel kasta ay joogto dunida dacaladeeda inaan farxadda uun la dhammaashaadno waxaan yaraynay khudbadihii maxaa yeelay waa maalin farxadeed oo aan rabno inaan wada faraxno laga soo bilaabo maanta dabaaldegii weynaa iyo midkan iyo kuwa maalmaha soo socda jiri doona maxaa yeelay rubuc qarni ayaan waxaan soo jirnay kala dambayn iyo deganaansho walow mararka qaybtooda ay dhici karaan khilaafyo iyo caqabado dawladnimada iska leh adduunkuna waa marxalado uu maro laakiin asalka wuxuu yahay marna ma uusan qaloocan hadafkii iyo toobiyihii loo dhisay Puntland waana uga mahad celinayaa cid kasta oo ka soo shaqeysay waxaan kaloo qirayaa kala aragti duwanaanta siyaasadeed inay tahay qayb dawladnimada ka mid ah oo runtii aanan u helin fursad inaan guulaysanno oo ku guulaysanno inaan helno nidaam abuuraya kala duwanaan aragtiyadeed oo dawladda kaasi waa mid axdi qarameedkii ugu horreeyay lagu qoray ee uu dhigayo nidaamka axsaabta badan intii ka horreysay xisbiyada lagu dhawaaqay maalintii shala ahayd in dalkii xisbiyo yeesho wixii ka horreeyay wixii dhacay cafallahu amma salaf la isu qaban maayo maxaa yeelay nidaamka dawladeed ayaan wuxuu siinayn fursad uu ku soo bandhigo aragti duwanaantiisa iyo platform uu uga hadlo taas ayaa waxay keenaysay xiriirkaas ayaa wuxuu keenayay in gacanka hadal marmarka qaarkood dhaco maanta mar haddii taa laga gudbay ninkii wadada mara ogaada waa nin Puntland wixii maanta ka dambeeya qof kasta ra'yigiisa wuxuu u yahay xor aragtidiisu wuxuu soo bandhigi karaa waxaan rajaynaynaa iyada ruuxadeeda maalmaha hore waa u dulqaadanaynaa ee waa dhaqan nagu cusub oo waqti nooga baahan oo aan rajaynayno inaan isagana gaaro meel ummadaha adduunka jira ee xadaarada leh sida ay u dhaqmaan kala aragti duwanaantooda dawladdan aan madaxweynaha ka ahay madaxweyne Axmedna uu ka yahay madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaankeeda iyo hay'adaheeda dawladdu muddadii ay jireen 25 sano shantii sano u dambeysay waxay qayb ka ahaayeen inay qayb ka qaataan himiladaas fog ee dadka reer Puntland lahaayeen in ay dhidibada u aasaan waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka sheego waxyaabaha aan ahmiyadda gaarka ah siinay waxa ugu muhiimsanaa arrintii ahayd tayeynta hay'adaha dawladda hadday tahay ciidan iyo hadday tahay madani mar raba inaan aad ugu sii sheego maxaa yeelay filimkii halka soo dhigay ayaa ka sheekeeyay isbeddelka iyo taariikhda laga sameeyay waxa kaloo dawladdan xoogga qaadida sareynta sharciga oo ah meesha asalka u ah dawladnimadu aan rabno inaan dhidbada uga aasno waxaan kaloo xoogga saarnay horumarinta ilaha dhaqaalaha iyo kaabayaashooda oo ah meesha insaanka karaamadiisa dhowraysa maxaa yeelay dawladnimo dhan waxay u socotaa inay qofka insaanka ah siiso karaamo iyo baraare iyo deganaansho waxaana saldhigu ah dhaqaalahan waxaa saldhigu dhigaa kaabayaal haddaan kaas la isla fahmin oo dhaqaalaha dawladda loo qaato wax dad loo qaybinayo waxa aan doonayna ma gaarayno markhaanti baad ka tihiin kororka dhaqaalaha ku dhacay 59% inuu yahay wixii lagu qabtana indhihiina macallin u ah isbeddelka Puntland ku dhacay asalkuna halkaas ahaa quruxda reer Puntland ka muuqata isbeddelka dadka iyo dadkoodaba ka muuqda waxa saldhig u ah hantidii iyo canshuurtii laga qaaday oo dib loogu celiyay taasaan waxaan rabnaa inay noqoto sunno xasana oo sidaa u sii jirta oo cid walba oo dawladdan madax ka noqoto wadada inay raacto shacabkeeduna ay ku kormeeri doonaan kuna la xisaabtami doonaan waxa saldhig u ahaa oo kaleeto qodob muhiim ahaa ama labada qodob hadda u dambeeyay waxay labadii qodob oo aasaaska u ahaa Puntland axdi qarameedkeeda ay ku yaaleen dastuurkooda uu ku yaalo oo la gaari waayay qodobka koowaad wuxuu ahaa dhamaystirka hay'adaha cadaaladda
oo ahayd in la abuuray maxkamaddii dastuuriga ahayd oo ahayd maxkamaddii u horreysay oo geyi Soomaaliyeed oo xor ah looga dhawaaqo. taasna waa guul iyo sharaf reer Puntland u soo hayatay iyo hay'adaheeda dawladda oo ugu horeeyaan golaha baarlamaanka oo ansixiyay xubnihii xasaanadna siiyey xubnaha maxkamadda dastuuriga ah oo waa hore miraheeda la arkayo siyaasiyiin fursad loo siiyey meelay u dacwoodaan. hadduu qofku wax tabto waa inuu helaa meel u dacwoodo iyo cid cadaaladda u qaada. waxaan u rajaynayaa guddoomiyaha iyo xubnihiisaba inay bulshada reer Puntland si cadaalad ugu adeegaan oo wixii Ilaahay ku ogyahay oo xaq ah oo dastuurku uu farayo inay siday tahay u fasiraan si ummaddu ay u kala badbaado oo aanan loogu dhicin god dambe oo halisna geliya. waxaa kaloo iyadana qodobka muhiimka ahaa qabashadii doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo horumarka laga sameeyey xeerarka iyo adkeynta dimuqraadiyadda iyo nidaamka xisbiyada badan oo aad arkayseen in ay taariikh cusub Puntland samaysay 25kii bishii Juulaay oo ahayd maalinta dhammaystirka dastuurka Puntland qodobadiisa ugu muhiimsan iyo dimuqraadiyadda. maalinta taariikhda Puntland ku suntan gaar ahaan waxaan rabaa inaan halka uga mahadnaqo golaha baarlamaanka hadda jira oo xaq dastuuriga uu siiyey u celiyey dadweynihii oo markay arkeen dareenkooda iyo doonistooda. waxay yiraahdeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dadweynuhu idinkaa dooranaya. qodob dastuurka ku yaallay ma ahayn. waxay u garteen inay bulshadooda niyaddooda ay dejiyaan. waa arrin taariikhi ah oo nala mid dhigaysa adduunyada caalamka maanta horu martay oo ah meesha keliya oo ku soo bixi karaan hogaamiyaal kalsooni dadweyne haysta oo ummadooda u adeega. arrintaas waa arrin taariikhi ah oo Soomaaliya horseed u noqon doonta haddii Ilaahay idin ka dhigo. waxaan halka baaq uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaan ugu baaqayaa nabad, waxaan ugu baaqayaa midnimo, waxaan ugu baaqayaa walaalnimo, waxaan ugu baaqayaa wada hadal dhabka hadal ah, waxaan ugu baaqayaa in la xaqiijiyo dhismaha dawlad adag oo dalka Soomaaliyeed yeesho oo dadkooda u adeega. waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed waqooyi iyo koonfur iyo bari iyo galbeed meel kasta ay joogto inay gogol wada hadal oo dhabka hadal isugu yimaadaan, inay garnaqsadaan, inay ka waantoobaan aragtiyaha kala duwan ee jajuubka la rabo in lagu meel mariyo, in la isu dulqaato oo si dhab ah loo wada hadallo oo dawlad lagu wada qanacsan yahay la soo saaro oo sharcigaas uu noqdo sharci dhidibada u aasa oo ugu muhiimsan yahay dastuur daa'im oo dalka yeesho. waxaan rabaa inaan dadka reer Puntland u bidhaamiyo dastuur Soomaaliyeed oo dhammaystiri karaa ma jiro inta Somaliland maqan tahay. waa in go'aan laga gaaraa. arrintaasi waa arrin kaba dhibcaan ah. wax kasta oo arrintaa ka duwan wixii la sameeyo weli waa qabyo. marka waxaan rajaynayaa in dhab loo wada hadlo oo wixii laga badin waayo oo la isugu qacloolfiyo yahay go'aan lagu gaaro kadibna lagu xisaabtamo ciddii markaa diidana. waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto. Puntland waxay diyaar u tahay dadka ugu horeeya ee waxa heshiiska lagu yahay dhowri dooro inay tahay siday haddaba u dhowrto. waxaan rabaa halka inaan hambalyo gaara u diro dadka SSC oo runtii muujiyey inay sharaftooda iyo karaamadooda dhowrtaan. waxaan ugu hambalyeynayaa midnimada ay gaareen. waxaan ugu hambalyeynayaa inay kelmaddoodii mid noqotay. waxaan ugu hambalyeynayaa inay mustaqbalkooda ay marakan ka ilduufi doonin mar dambe. waxaan u rajaynayaa inay gartaan nacabkooda iyo cadowgooda iyo xabiibkooda inay kala gartaan, inay aayahooda si saxa uga fakeraan. Puntland hore u sheegtay haddana way ku celinaysaa. fursad ayay siinaysaa ay dib ugu xisaabtamaan. waxaan u rajaynayaa iyagoo mid ah oo midaysan oo aragti mid ah leh inay walaalahood Puntland oo garabka ku haya ay noqdaan dad wada nool oo maamul qura leh oo ku wada tanaada haddii Ilaahaymo Soomaalina ay wada baadi goobaan. waxaan rabaa caawa kelmadeyda ugu dambaysa
halka inaan ku bayaamiyo dawladda aan mas'uulka ka ahay khaasatan golaha xukuumadda iyo anigaba waxaan dadka reer Puntland u sheegayaa oo cod dheer ugu sheegayaa dawladdan aan madaxda ka ahay waxay rajaynaysaa ama diyaar u tahay inay doorashada xilligeeda ku qabato niyad kororsi aan naguma jiro waan ognahay dhibka uu leeyahay waxaan rabaa dadka reer Puntland mar dambe inaan lagu beer la xawsan madaxweynuhu ma hadlaa la yiri maanta in la hadlo waxaan diyaar u ahay tartan iyo dadkayga inaan u shaqeeyo waxaan rabaa 8 January in doorasho la galo axsaabta reer Puntland leeyahay sharciga la dhowro waxaan soo dhaweynayaa xisbiyada buuxiyay shuruudo xisbiga noqday waxaan rajaynayaa in la isku ixtiraamo waxaan ballan qaadayaa aniga iyo xisbigayga haddiina laga guulaysto inaan xilka si sharaf loo wareejin doono haddaadna doorataan waxaan rajaynayaa inaan si sharaf leh oo daacadnimo aynu ugu shaqeyno dalka nabadda loo daayo deganaanshaha laga wada shaqeeyo dadka yaan la marin habaabin dawladda tani waxay ku sifaysan tahay sarreynta sharciga ilaalinta dimuqraadiyadda iyo in ay aragtiyaha ka duwan dhageysato waxaan rajaynayaa Puntland iyo Soomaaliyaba inay iska ilaawaan in dadka bini'aadamka ah wuxuu rabin lagu jajuubo ee loo ogolaado inay masiirkooda iyo aayahooda ka taliyaan waxaan rajaynayaa xubnaha ururka doorashooyinka in si degdeg loo soo magacaabo dalka la jiheeyo 5 bilood oo dhiman waxaan waaye arag ku nahay 30 degmo oo baaxad weyn leh ayaa 5 bilood min diiwaangelin ilaa doorasho ku qabanay way nagu filan tahay dadkeenana waa ku kalsoonnahay diyaarna waxaan u nahay waxaan naga badan inaan dalka gaarsiinay doorasho qof iyo coda oo 25 sano la sugayay waxaan ku rajaweynahay dawladdan waxay ku guulaysatay deegaanadii Puntland ururadii dhistay ee Puntland sameeyay oo aan hadalkay ku bilaabay deegaanadoodii baa la mideeyay oo midadii u dambeysay madmadow ku jiray alxamdulillah maanta kulligood dadkiisii baa ka talinaya meel ka maqani ma jirto waxa ka dhiman waxa weeye inay hore u socdaan oo dalkooda u tashadaan oo khayraadkiisa la soo baxaan oo danihiisa ay ka shaqeeyaan oo jiilka soo koraya ay u baadi goobaan mustaqbal aayatiin wacan oo ku dhisan sharci iyo kala dambeyn iyo nidaam iyaga u adeegaya inay gaaraan horumarka ay tiigsanayaan waxaan u rajaynayaa Soomaaliya guul waxaan u rajaynayaa Puntland guul waxaan u rajaynayaa dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan dibad iyo gudaba guul iyo horumar waxaan noo rajaynayaa midnimo waxaan noo rajaynayaa inaan sanadkiisa dambe isugu nimaano annagoo caafimaad qabna horumarkoo intaa ka badan mustaqbal ifaya waxaan u rajaynayaa cid walba oo naga aragti duwan halka waxa iga codsaday dayaano inaan wixii hore cafiyo dadku waa isugu kaymid cafiya masaabax cid ilaahay baan khaldamin cid kasta waa khaldami karaa cid kastoo wax iga tabanaysana waxaan ka rajaynayaa in aan la cafiyo idinkana cafiya masaabax baa tihiin hurdo wacan habeen wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وادني دنت ددكنا وادني ديلا وادني طبيب وادني مدحوينا وادني وادني دنت ددكنا وادني ديلا وادني طبيب وادني مدحوينا وادني نودي وادني جميع غيدك كنني كونفر قلبك بقوي إلا بريدني lagu joogsani lagu jirsani wala daawani dani adano dirano diyaara wadani dani meeywe dhabu deeqay dadkeenani dani koonfur galbeed waqooyi ilaa bari dani lagu joogsani lagu jirsani wala daawani dalka guushiisu dalka guush wadani dalka alimayo bedeli dalka
wadani dalka guushiisu wadani dalka guushiisu wadani talimaya u badali dalka guushiisu wadani dalka guushiisu wadani talimaya u badali dalka guushiisu wadani dalka guushiisu wadani dalka guushiisu wadani talimaya u badali dalka guushiisu wadani tanaya wadani taganodi dalilka wadani dhaxalinoodi nadagaysan inna damqani wadani tanaya wadani taganodi dalilka waxbari dhaxalinoodi nadagaysan inna damqani wadani kutubnidana wadani dani dalka horumarkiisa wadani daqsi dhala wadani dani dunida midkana bare wadani isku dubnidana wadani dani dalka horumarkiisa wadani